بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومضى الصومالي ميلاد جوجتان با وبرنامج كيني بافين وينكو بافينيني وسيرك أرمها الدبادة الجمهورية الفدرالية الصومالية وعنو كغا هادلينا بافين تاس iyo kelmada aynu ka oranayno maxaa ku xasan sheekh iyo waxa weeye xaalista ku duugan socdaalada faraha badan leh waxa weeye maxaa ku wasiir arrimaha dibadeed aan lahaynin iyo waxyaabihii la soo maray baynu wax ka oran doonaa waxaanu wax ka oran kale ka oranaynaa baarlamaanka hadda inoo jira iyo isaga laftiisa isku halaynta laga qabo iyo aaminaada waxa weeye waqtigan xasaasiga ah waxaynu ku soo gabagabanaynaa baaqaynu u dirayno dadka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan haddii aan ku horeyno waxa weeye maxaa ku dhacday baafinta wasiirka arrimaha dibadda si aad ogtihiin waxa weeye bishan 29 bay maraysaa 29 kaas bari dalku wuxuu ku jiray dagaal siyaasadeed buu ku jiray waxa weeye oo diblomaasiyadeed oo caalamka lagu dagaalamayo dalkuna wasiir arrimaha dibadeed ma laha xasan sheekh ayaa meel walba ordaya maxay arrintaasi salka ku haysaa maxaa diiday in wasiir arrimaha dibadeed la soo magacaabo maxaa duugan oo la qarinayaa waxaan u daynayaa shacabka Soomaaliyeed inay ka jawaabaan waayo dalka waxa iska leh dadka Soomaaliyeed baa iska leh iyadoo waliba aad ogtiin maanta in la magacaabay laba wasiir oo cusub oo wasaarado aan magaranaysa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda hawlaha guud loo magacaabay waxaan idin weydiinayaa shacabka Soomaaliyeed maxaad uga aamusan tihiin wasiirka arrimaha dibadda meesha uu ku maqan yahay iyo sababta loo magacaabi waayay inta shacabka Soomaaliyeed baan u daynayaa xasan sheekh waxa weeye maxaa ku dhacday maxamuud waxaan leenahay waxa weeye maxaa ku dhacday horta markii ugu horreysay waan ku soo dhaweynaynaa dhawaaqii ahaa istifaaca inuu la istifaaco oo waxa weeye weerarka cadowtinimada leh ee Itoobiya ay soo qaaday in la iska difaaco qodobka isaga waan soo dhaweynayaa laakiin waxaan u sheegayaa xasan sheekh farsamo xumadiisu inay keentay waxa weeye maxaa ku dhacday dhaqankan xun ee Itoobiya ay ku kacday sababtu tahay siyaabo badan arrintaasi ay waxa weeye xaqiisa ay uga dhacday kow horta heshiiskii uu galay wadamada bariga Afrika la yiraahdo waxa dhici karta inuu ka xanaajiyo Itoobiya sidoo waaga horeba magaranaysa maxaa ku dhaar runtii dagaal magaranaysa ay noogu soo qaadeen Kenya in badanna uu uga dhawaajinayay ninka la yiraahdo Abiy Ahmed waxa weeye maxaa ku dhacda in waxa weeye maxaa ku dhacda ay badoonayaan waxaan arkaynaa halkaas in ay waxa weeye ahmiyadii loo baahnaa inaanu siin takale waxa weeye waxaynu kaloo aynu ognahay in heshiis uu jiro waxa weeye heshiiskan ka horeeyay oo waxa weeye maxaa ku dhaleeyahay wasiirka gaashaandhiga ayaa la galay dhigiisa magaranaysa Itoobiya ama maqan waa magaranaysa kulay magaranaysa dawladda Itoobiya waxa weeye qaar kamid ah heshiiskaas wali wuxuu nuxurkiisa iyo wuxuu xambaarsan war looma hayo waxaan isweydiinaynaa maxaa heshiiska loo soo bandhigi waayay maxay baarlamaanku uga doodi waayeen maxaa dadka loogu sheegi waayay wuxuu xambaarsan yahay waa su'aal meesha taala waxaan kaloo leenahay xasan sheekh maxamuud waxa weeye ayaanti marka intaanu dhicin heshiiskani xasan sheekh iyo Ismaaciil Cumar Geele iyo Muuse Biixi waxa ay ku shirsanaayeen waxa weeye maxaa ku dhacday magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waad ogtiin halkaas oo kullay waxa weeye dhagar lagu karkarinayo ummadda Soomaaliyeed lagu dhagrayay dabadeedna mooyaa la isku fahmi waayay mise waxa weeye maxaa ku dhaca halkaas waxa weeye maxaa ku dhaca ka muuqatay in waxa weeye Ismaaciil xasan sheekh uu doonayo inuu magaranaysa maxaa ku dhacday heshiis galo waadna maqasheen oo in isaga laftiisa afkiisa waad ka maqasheen inuu yiri anagu heshiis ma diidin Itoobiya laakiin anaga inaynu soo marto bay ahayd marka wax meesha lagaga hadlay buu ahaa sidaa darteedna uu musabix uu damcay inuu magaranaysa maxaa ku dhacday degdegsado maadaama heshiis la galayo inuu isagu ka saxiixa noqdo waa su'aal daaweyn oo madaxa daalinaysa waxaan leeyahay xasan sheekh oo aynu ognahay inuu magaranaysa maxaa ku dhacday yahay nin yasmana oo nin wax lagu shubto uu yahay oo nin NGO-ista uu yahay oo hadda ay gacanta ku hayso magaranaysa Imaaraadka Carabtu oo saaxiib dhow la ah maxaa ku dhacday wadanka magaranaysa Itoobiya xagu ina geen kara kaliya hadayna shacabka Soomaaliyeed oo indhaheena furin hadaynan xisaabtamin xagu ina geen kara weeye su'aashu sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed baan magaranaysa maxaa ku dhacday insha Allah waan ugu dambaysanayna qodobkeena waxaan leeyahay indhaha fura baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaynu arkaynay dhaqan xumadii iyo magaranaysa maxaa ku dhacday habraaci dastuurka qaabkii ay u ansixiyeen runtii qaab ummadda Soomaaliyeed ay diiday ayuu ahaa oo dhaqan xumo ay ka muuqatay oo waxa weeye aad moodaysay shirqool inuu meesha ku jiro iyadoo la inoo sheegay wuxuu inaanu ahayn habraac laakiin su'aalaha aynu isweydiinayna waxa weeye
waynu ognahay ninka la yiraahdo magaranaysa maxaa ku dhahdo gudoonka magaranaysa golaha baarlamaanka quality-giisa iyo maxaa ku dhahdo wadaniyadiisa iyo maxaa ku dhahdo shakhsiyadiisa in badan baa la dhaliilay inaguna waan dhaliilaynaa iminkana waa inoo muuqdaa dhaliishiisu waa inoo muuqataa waxa aan leenahay waxa weeye siday barnaamijkaas ku soo baxeen waynu ogeyn xasan sheekhna iyaga dhalay waxa weeye aadan madoobana iyaga dhalay waxayna ka turjumaysaa quality-ga iyo waxa ay yihiin iyo waxa aynu inagu u dirsanay magaranaysa maxaa ku dhahdo barnaamijka sidaa darteed waxaan leeyahay war isku xishooda oo wax iskula hara oo shakhsiyaadka hufan in uu dignity-ga leh waxa jira shakhsiyaad waxa weeye maxaa ku dhahdo dan leeyahay iyaga laftoodu laakiin dantoodu ay waxa weeye maxaa ku dhahdo markay macquul ka tahay raadiya war waxaan leeyahay waxa weeye maxaa ku dhahdo ka kaca fadhiga oo dalka difaaca oo dastuurka ilaaliya oo ummadani waxa weeye waa lagu soo duuleeyay ummadan maanta meel ay u baxdo makhraj ay u baxda waxa weeye in uu barnaamijku u magaraysa u badbaado barnaamijku haduu dadka u badbaado dalka waxba ka hadhaya laakiin hadii barnaamijki bahal galeen noqdo oo madaxweynihi magaraysa bahal noqdo oo ra'iisul wasaarihi bahal noqdo oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed marka xaaladeedu waqti bay galaysaa marka waxaan leeyahay nimanka baarlamaanka la yiraahdo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed wadin eegaysa waana dhaliilantiin baan idin leeyahay immigrants inta ka bacdi waxaan rabaa in aan la hadlo shacabka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan haday leeyihiin dhaqan iyo haday leeyihiin culimo iyo haday leeyihiin dhalinyaro iyo haday leeyihiin waxgarad iyo haday leeyihiin siyaasiyiin ragooda iyo dumarkooda intaba waxaan leeyahay fadhiga laga kaco shacabka Soomaaliyeed fadhiga ka kaco shacabka Soomaaliyeed waxa weeye waxa la Soomaalidu waxa tiraahdaa wan weyn ilaa la gowraco indhihi sicirka ma arkaan waynu gowracanahay maanta waynu gowracanahay heshiiskani waxa uu tilmaamayaa iyo waraysigii uu bixiyay maxaa ku dhahday ninka la magaraysa safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya waraysigii uu bixiyay waxay tilmaamaysaa inaan la inoo aqoonsanayn dawlad inaan la inoo aqoonsanayn cid hasal inaga qaadaysa aynu jirin sidaa darteed waxa ay tahay dadka Soomaaliyeed inay isbadbaadiyaan wax garadku inay dadka horkacaan dadka ulul amriga ee culimada leh ee dhaqanka leh ee siyaasiyiinta leh waa inay dadka horkacaan waa inay dadka waxa weeye maxaa ku waa inay muuqdaan waa inay dadka waxa weeye dhalinyaradu laftoodu waa inay fadhiga ka kacaan oo ay waxa weeye dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba ay difaacdaan ilaahayna waxaan ka baryayaa waxa weeye maxaa ku laadaayay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina garansiiyo waxaan u baahanahay inaan cabirno quraan shawrtay mulac way jeeda hadii aynu isu tagno oo aynu u midowno waxa weeye maslaxadeena aanu midowno cid walba inaga ka adag duufaan baynu nahay dabaylaynuna cid walba waan xaaqaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa inay dhacdooyinkan dhacaya ay noqdaan kuwii dalkan iyo dadkan waxa weeye maxaa ku dhahday ay ku badbaadi lahaayeen midnimadoodina ku soo noqon lahayd ilaahayna hayna garansiiyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh